الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حكى حديث أي صار الإمام أحمد يا مسلم يا أربعة أهل السنن من حديث أبي ذر أي النبي نوح صلى الله عليه وسلم سدح الروح ما لنت قيامة إلهي إلا ما هضله ما نفيريو إلنا حريسيتكم الضيو ما الظاهريو أو أمدا بدافه عذاب حنوشينا وإليه والصدح روح والصدح كسفوبي صفات إلهي نعبيها تبارك وتعالى وقود يوعيد أذقوي محايل ربكين تبارك وتعالى ما ننت قيامة أدومدي صالحين تأوش عليها يبو الله هذا الكيسان قيمة ويبو كفر ليها وفيريا إلنا حريسات بو كفيريا إيقنا ويداودان إني ربي قد فيريان ويداودان النعم كله لكوا أقوقالي سنوي آخريا له إلهي وتسكييا وظاهريا وأدن بدافع وعافيا شنا إيهوغنا حريستنا وإليه انتاب عدة لغا قديي واعد الله تبارك وتعالى الذنب وين كغشيوا صدحداسي وعيدك يا غوديغا adag ku soo arooray wuxuu nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam ka koobaad al-musbilu izara wa ruuxa hoos guntigiisa maradiisa qaar dambaha saaran ee asturaysa hoos u dhiga oo raariciya oo aan qowga ka hoos mariya ka koobaadi waa ka ilaahi tabaaraka wa tacaala uma naxariisto mana fiiriyo lamana hadlo cadaw xanuun badanna uu leeyahay sababtu maxay tahay allah tabaaraka wa tacaala sharcigiisa waa sharci dhammaystiran waa sharci loogu talagalay aadamaha noloshiisa qayb kasta inuu maamulo oo shuruuc iyo nidaam u dejiyo wuxuu kugu maamulayaa labiskaaga wuxuu kugu maamulayaa cuntadaada wuxuu maamulayaa nidaam u dejinayaa cabitaankaaga shahwadaada noloshaada oo dhan baa nidaam loo dejinayaa iska dhaaf wax kale musqusha gudaheeda iyo suuliga gudihiisa ayay kugu maamulaysaa oo shuruuc iyo nidaam lagu dejinayaa ma aha shareeco iyo diin sida la mooday qayb nolosha kamida intay uun ka hadasha inta kalena faraha ka qaada ma aha nolosha mideeda ugu yaryata ugu weyn bay shuruucdiya nidaamka diintu uu saameynaya saas daraadeed labiskaaga iyo qaabkaad u labisanayso iyo dharkaaga iyo qaarkaad u xidhanaysaa nidaam iyo shuruuc buu leeyahay loo baahan yahay inaad ilaaliso haddaad ilaalin weydana dambi weyn baad galaysaa waxaa ka mid ah raggay masaladani khaas ku tahay dumarku kuma jiraan labiska ruuxa muslimka ninka waxa la doonayaa inuu aanqowga ka koreeyo ama sarwaal qab ama macawis qab ama qamiis xidhnow qaar dambahaba waxa astura ayoo dhanba izaar la yiraahdaa nabigeenuna wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ruuxa mu'minka qaar dambihiisa marada qarinaysa meeshay ku egtahay waa dhudhunka dhexdiisa dhudhunka iyo aanqowga inta u dhaxaysana dhib male buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin wixii aanqowga ka hooseeya waa naar buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo ruuxa sameeynaya sabab waxay ugu noqonaysaa inuu naar galo wal ciyaadu billah waa arrimaha dadku aad u fududeystaan
khatar badanna ka imaan karto maalinta qiyaamada. nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi si guud ummadiisa wuxuu ugu jideeyey nin muslimaba haddaad tahay hoos guntigaaga kor u qaado. waxaa soo maray maalin maalmaha ka mida ibnu cumar saxaabigii jaliilka ah. ibnu cumar wuxuu leeyahay markaan nebiga soo maray maradaydu waa hoosaysay hoos bay u laalaaday aan qowgay ka hoosaysay. nabiga arkay sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi cabdullaahiyow marada kor u qaad. kor baan u qaaday buuhi. ku dar buu yidhi buuhi. waan ku daray buu yidhi. meeshii markaa nebigu ii istaajiyey marada ayaa noloshayda intii dambe ku ilaalinayay buu yidhi. raggii meesha joogay qaar ka mida weydiiyo waxay yidhaahdeen cabdullaahiyow meesha nebigu kuu gaadhsiiyey ee uu kaaga aamusay xaggay ahayd? wuxuu yidhi dhudhunka dhexdiisay ahayd. dhudhunka lugta dhexdeeda halkaa markaan gaadhsiiyey buu nebigu sal alla alay wasalam ii daayay, halkaasaanan ku ilaalinayay buuhi. waa macnuhu tilmaamaya nebigu markuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh isratu lmu'min ilaa ansaafi saaqayhi. ruuxa mu'minka hoos guntigiisu wuxuu ku egyahay ilaa dhudhunka dhexdiisa. walaa junaaxa calayhi maa baynahu wa bayna alkacbayn. inta u dhaxaysa dhudhunka dhexdiisa ilaa aanqowgana wax dhiba ma leh oo dembi ka soo gaadhi maayo. wamaa asfala min alkacbayni fa fi nnaar buu nebigu sal alla alay wasalam. wixii aanqowga ka hoos marase waa naar. u fiirsa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh hoos u dhigga marada laf ahaanteeda buu nebigu ku tilmaamayba inay tahay makhiila, waa kibir buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. maxaa yeelay maradaada kor baad u qaadan kartaa iyo maxaa keenay inaad hoos u dhigto dhulka ku jiido? soo qasad ma ah, dan baad ka leedahay. laf ahaanteeda kibira buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waa xaraga kibir. ilaahayna tabaaraka wa tacaala xaraga kibirka noocaasa ma jecla. saasuu nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. cabdilaahi bni cumar u fiirso markuu nebigu leeyahay marada kor u qaado ma dhihin ma kibir baad u samaynaysaa mise siday kaa noqotay. bimujarad uu nebigu arkay maradoo hoosaysa war marada kor u qaaduu ku yidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sidaana saxaabadii nabigeenna ahaan jiray ridwaanullaahi calayhim. alkhaliifatu araashid cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu wa ardaa markii isagoo salaada subax ku jiro dadka tujinaya ninkii gaalka ahaa ee ciljiga ahaa uu toorida daray oo caloosha kala jeexay oo khaliifatu rasuulillaahi sal alla alay wasalam dhaawacaya oo muslimiintii isku dhex wareereen oo khaliifkii xaaladiisii uu khatar ku jiro oon la garanaynin wuxuu ku dambayn doono oo inta cabbitaan la siiyey ay caloosha ka daadatay oo loo badinayo inuusan noolaan darin oo xaalad dardaan uu ku jiro muslimiintii baa u soo gelaya cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaa. qaybqayb koox koox nin baa loogu soo gelaya. dadkii u soo gelaya waxaa ka mida nin dhallinyaro ah ayaa ka mid ahaa. markuu u soo galay buu u bishaareeyey. wuxuu yidhi bishaarayso maxaa yeelay waxaad ka mid tahay raggii nebi maxamed la saaxiibay ardadiisii baad ka mid tahay. dadkii ugu horreeyey ee diintan qaatay ee garab istaagay baad ka mid tahay. xil baa laguu dhiibay oo muslimiinta muddaad xukumaysay ood cadaalad ku maamulaysay. haddana ilaahay noloshaadii shahaaduu kuugu khatimayoo shahiid baa tahay. bishaaraysuu ku yidhi. cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaah oo ka mid ahaa dadkii jannadaba loogu bishaareeyey iyagoo adduunka korkooda jooga haddana cabsidiisaa badnaan jirtay. wuxuu ku yidhi dhagayso waxa aad akhriyayso oo dhan waxaan jeclaan lahaa buuhi in laysla tuuro. waxaan sameeyey oo dhan iyo dembigayga inay isu dhacaan oo aan badbaado naar ka badbaado intaa haddaan heli lahaa intaasaa wax weyn ii ahayd buuri. waxaad tirinaysooo kaleoo dhan ila dhaaf buuri. wiilkii yaraa markuu laabtay oo inuu dhaqaaqo bilaabay ayaa cumar ishiisu waxay ku dhacday marada wiilka oo dhulka taabanaysa. cumar waa sakaraad waana xanuunsanaya hawl intaa ka weyn baa taallo oo muslimiintii iyo maamulkoodii iyo mustaqbalkoodii xaalad culus baa taalla.
haddana maca daalika taasi kama mashquulinin alkhaliifatu raashid cumar inuu wiilka dhallinyarada iyo maradiisa dhulka xaaqaysa dhulka taalla inuu baraarujiyo kama mashquulinin wuxuu yidhi wiilka ii soo celiya waa laga daba tegay soo laabaa la yidhi wiilkii waa la soo celiyey markaas wuxuu ku yidhi wiilyahu yaa adeer marada kor u qaado buuri maxaa yeelay maradaadana sidaasaa u dahaaro iyo nadaafad badan rabbigaana sidaasaa u cabsi badan rabbigaa cabsidiisu taasay ku jirtaa maradaadu inay nadiif ahaato iyo wasakhda dhulka ka badbaadana taasay ku jirtaa aaway marka dadkii dhahayay wadaadadan maryaha uun ku mashquulsan yaa muslimiintii arrimo waaweyn baa u yaalla gumaysi baa hayst iyagii baa iskhilaafsan dhibaataa taalla maraa laga hadlayaa iyo meel hoos ha loo dhigiyo kor ha loo qaado ilaa ayba ku tilmaameen wadaadada qaarkood maba aha arrimo waaweyn oo laga hadlo ma ah yaa jamaaca nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi markuu leeyahay war kor u qaad cabdulaahi ow maradaada masale weyn maaha miyaa cumar iyo muslimiinta arrintaasi u taalla markuu leeyahay war marada kor u qaad arrin weyn ma aha miyaa mase diinta islaamka waxaa ku jira waxaan macno lahayn oon lagaba hadlinba abadan masaa'isheeda dhammaanteed qiimay ku fadhiyaan ruuxa muslimkaana waa inuu diintiisa u hoggaansamo waay sidaas daraaddeed irfac izaarak haddaad intaa ku darto inay xaraga kibir iyo kibir qalbigaaga ku jira ay kugu kallifayso dembigu waa ka sii weyn oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ruuxii hoos guntigiisa kibir iyo xaraga kibir iyo isla weynan hoosguntigiisa dhulka ugu jiida ilaahay maalinta qiyaamada ma fiiriyo tabaaraka wa tacaala idan maradaada kor u qaad sarwaalka kor u qaado macawista kor u qaado muslim baa tahay diintaada ka amar qaada nebi maxamed ateec salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa nasiib xumo ah intaasoo xadiid iyo shuruucdaasi masale ay ku soo aroortay in ay muslimiinta in badanoo ka mida ay yidhaahdaan waa dad khaasa calaamadooda iyo dhaqankooda waaye waa niman la yidhaahdo wahaabiyay dhaqan u tahay hadday taasi wahaabiye dhaqankooda tahay wahaabiyaan nahay dhaqan wahaabiye hadday tahay sunnadii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo la dhaqangeliyo nacam saasaanu nahay in kaana xubu aala muxamadin rafda falyaclam ithaqalayni annii raafidi nacam sunnada nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh cid kastoo muslim ah siyaasi ha ahaado ganacsada ha ahaado rag ha ahaado dumar ha ahaado sunnada nebi maxamed ummadiisao dhan bay u taallaa almusbilu isaara maradaada kor u qaado meelaadan filaynin buu cadaabku ka yimaadaa si lama filaan ana naarta waa lagu galaa si lama filaanana khatar waa lagu galaa nebi maxamedna wuxuu sheegay dunuub ay dadku fududaysanayaan oon la weynayn oon indhahooda ku weynayn iyo miisaankooda iyo qiyaastooda inay keeni karto inay naarta ugu hoobtaan 70 sano waa kelimo aan kula weynayn waa dhaqan aan kula weynayn saas daraaddeed aakhiradaada ha ku khamaareen mara yaroon qiimaba ku fadhiyin inaad kor u qaadaba ayna kugu adkayn maxaad naar iyo khatarteeda ugu gelaysaa ninka labaad ama ruuxa labaad ee nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuusan alla fiirinaynin una naxariisanayn una dembi dhaafaynin cadaab xanuun badanna uu leeyahy wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam waa ruuxa abaalsheegadka badan wax ma bixiyo ilaa dadku ku abaalsheegtaa ixsaan hadduu sameeyo xoolo hadduu bixiyo gacan hadduu geysto wuxuu sameeyaba dadku ku abaalsheegtaa gallad buu ku sheegtaa kaa ilaahay uma naxariisto bal axaadiista nebiga sal alla alay wasalam waxay tilmaamaysaa inuu ka mid yahay dadka naarta loo qoray axaadiista qaarkeedna waxay tilmaamaysaa inuu ka mid yahay dadka jannada loo diiday sababtu maxay tahay adeer markaad dadka ku galladaysanayso waxaasaan idiin galay yaa waxaad u gashay dadka xoolo keliya maaha cilmi baad bartay cilmigaad bartay inaad dadka ku galladaysato maaha xooggaagaa dadka ku anfacday waxbaad ku tartay ma aha inaad ku galladaysato xoolaad siisay ma aha inaad ku galladaysato khatar inuu ka badbaadaad sabab u noqotay ma aha inaad ku galladaysato allaah baa korkaaga gallad ku leh
ee maaha inaad addoommadiisa aad ku abaal sheegata ma adaa abaal lagugu leeyahay sababtuna waxay tahay xooggan aad wax ku tarayso xoolahan aad bixinayso ihsaankan aad bixinayso cilmigan aad dadka barayso ee aad moodayso inaad adigu leedahay Allah tabaaraka wa ta'ala baa ku siiyay asagayna waajib tahay inaad uga mahad celiso ogaatana inuu isagu waafajinta leeyahay sidaas daraadeed ruuxa wuxuu bixiyaba galad sheegto oo dadka ugu abaal sheegta asagana wuxuu ka mid yahay saddexdaas aan ilaahay maalinta qiyaamada la hadlaynin fiirinaynin daahirinaynin cadaab xanuun badanna leh waxaa yeelay wax ilaahay dartii aad u bixisay adeer wax lagama raadiyo dadkana laguma dhibo waxa aad baxsatayna sidaan khudbo hore kaga hadalay waxa aad baxsatay ihsaanka iyo wanaaga aad geysatay hadaad abaal sheegad ka dabageyso way burtay waxba kuma yaalaan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha war sadaqada aad baxsateen ha ku burinina abaal sheegad ha ku burinina ma aha dhaqanka ruuxa muuminka waxay ka sii daran tahay markuu laba arimood kulmiyo ruux markuu isku daro inuu bakhayl yahay hadana mannaan yahay axaadiista qaarkoodna saasa ku aroorto labadaba la isku daray waa bakhayl horta wax kuman ma bixiyo waa gacan adag yahay hadana waxoogaa yar markuu silic ku bixiyo oo rafaad kaga soo baxdo intiibu hadana daba jooga maalin hebla soonigiisa ku taray ma meel hebla soonigu ku siiyay ma meel hebla sooni tan ku galay ma waa waxoogaa yaraa ee ka soo baxay marka laba sayi'o ma bakhaylnimiye waxaad isku dariyay abaal sheegad waa arin xun waa dhaqan fiican ma ruuxa muuminkaana dhaqankiisa ma ninka saddexaad ee nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuusan alla fiirinaynin la hadlaynin daahirinaynin xanuun badanna uu leeyahay waa ninka ganacsada ah suuqu ka ganacsada badeecadiisa iyo alaabta u taala wuxuu ku socodsiiyaa dhaar si dadku uga rumaystaan alaabtuna ugu socoto ayuu dhaaranayaa wallaahi inaan intaa soo siiyey buu leeyahay wallaahi intaas iigu fadhidaa waa beenaale calashaani muxuu rabaa ruuxan badeecada raba inuu ka rumaysto warkaa oo uu saa kaga iibsado intuu wax walba soo dhaafay buu allihii kownkan abuuray ee qadarinta iyo weynaynta mudnaa magiciisiibuu wuxuu u isticmaalayaa intuu ka been sheego inuu badeecada ku iibsado sidii riwaayaadka qaarkooda ku soo aroortay allah buu wuxuu ka dhigtay badeeco uu iibsado badeeco uu iibsado dhaarta markaad dhaaranayso waa shay weyn sida ilaahay quraanka kariimka ku sheegay dhaartu waa shay weyn magac ilaahay baad cuskanaysaa dadka aad u dhaaranaysana waxay kaaga rumaysanayaan magaca ilaahay aad cuskanayso sidii ibliis oo kale inaad ilaahay magaciisa wax ku khayaantood khalqiga ku khayaantaay dambi weyn oo weyn baad ilaahay ka gashay tabaaraka wa tacaala sidaas daraadeed badeeco lagu kor dhaarto ruuxa dhaarta badani been buu u badan yahay ha u isticmaalin badeecadaada iyo dadka mucaamalaadka aad la mucaamaloonayso beeca iyo shiraha dhaarta iska ilaali لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم هكذا الله تبارك وتعالى متوق بصده هدف أداريه نؤن هدف أقدقتان يتارجت داريه نوقدقننا معها ربي تبارك وتعالى مجعيس وكون يهي وحسو كركي يميس كركي الله مجعيس اللقوة وضوها كدقن نعم هذا إلهي حصيص صح لكن إن بديعاء قيمة لهين الدنيا دتك كسرته والمجع إلهي كخيان تاي مايا ربي أنت وكون يهي هدوس كل فضو ضاضي ood badeeca la iibsanaya ka dhigatay magaciisi waad mudan tahay marka in ilaahay tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada naxariistiisa ka fogeeyo cadaabna ku galiyo sidaas daraadeed iska ilaali arrimo saddex oo khatar away maradaada u dhig qaabkii shariicadu u dhigto hadigii nabigaaga raac salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadaad ragtahay iyo hadaad dumar tahay labiskaaga hagaaj خلقك ربي تبارك وتعالى إحسانك أدو سمينيسو أدا إلهي كو سميي
إحساننا أبالكيس وإحسانا ننها كشيغن إلهي أكتس كرات تبارك وتعالى بيعاغا إيا شراهاغا إيا السوقاغا خلدها كجلين الله تبارك وتعالى مجعي سنها فضوضي سن انت وكويه يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به وكن كما شئت فكما تدين تدان صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم ارفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنهم الأعداء اللهم ادفع عنهم الأعداء اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم يا أرحم الراحمين اللهم وحد صفوفهم يا حي يا قيوم اللهم وفقهم للتمسك بأسباب القوة والتمكين اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الأعداء وارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم اصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك